اليهود هذا محل يري محل قديه عربته مريكا كوحو كدارين كلبا وحو سميا عدو انجرين مال من بدا وحو يرادا كان عدوغينا قف هذا مقت عدوغيسو انو سن قف يعني كلا u tilmaamin ee asagu yiraahdo ana garanaya ya cadowgi ah iyani ahayn laakiin duu yiraahdo aniga maanta kaan anigu cadow arkadeen cadow ka dhigo wadaad reebadhawan u timaro ma yaadin soo galay reebadhawada mid wuxuu arkay saasoo kale u dhaqmayo ninba isku xumaanayaan ninka isku xumaadeen ba wuxuu rabaa marka dadka kaleena inay sidaas la mid ah ninkaas asaga isku xumaadeen inay isugu xumaadaan oo uu naco marka sameey intuu tii ninkii hebel ah ayaan nacay oo isku xumaanay adisoo saaxiib ilma tiidaa adna ninkaas nac ninkan waliis iska hor imaan baxta isma ina salaamin kuna wuxuu yiri war ma hal dagaal maad gishdaa leeyay horta soo inaan caroodo kama horeyso yiri dagaalku waxa la galaa markii la caroodo kadib marka uu caroota dagaalka geli marka wuxuu ninkaas ana isku dhacnay adnaas maadaama saaxiib la tahay adna ku dhac oo nac afmaame ugu sheegay marka wuxuu yiri lan kun ka hadi adina ka hoy ilaahay way ku weeraan macnaheedu ruuxan ana nacay adiguna iga daba nac ilaahay baan ka yeeli wiraani ilaahay moota du qof naco jibriil buu yeeraa markaas hebel waa nacay jibriil oo nac markaas jibriil oo nacay malaa'ikta u sheegay ilaahay malaa'iktu u sheegay wuxuu leeyahay hebel ilaahay baa nacay idinkuna nac malaa'ikti baa nacays kadibna waxa loo soo dejinayaa dhulka ya waxa leeyahay hebel waa la nacay cirka laga nacay idinkuna nac dadkuna kurri iyo boqda ayaa loo gaweynacayaan marka qof hadii aad isku dhacdaan ana nacay nacday noqoto wuxuu anu waxaan ka yeelay arintaas ayada ilaahay bas ilaahay qofkii uu naco haduu ilaahay nacay dhaho ilaahay asaga abuurtay waan nacay qofkaas laakiin ruux bil aadama ruuxa isku dhaceen inuu yiraahdo war ana isku dhacnay adna isku la dhaco adna nac cid aan ka yeelo ilaahay ahayn majid marka taa waxay rabaa inay nooga iska dhigaan sidii ilaahay inay loo yihiino kolba maalinkay meel ay isku dhacaan ba inay loo jeediyaan carabta maanta waxa laga dhaadhiciyay oo u soo taagan yihiin cadow kale malihidiin oo aan ka ahayn Iran intaas loo sheegay carabtu waxa kale ma sheegayaan cadowgiina yaa waa dil waxay leeyeen cadow kale manihin oo aan ahayn Iran Israa'iilna ka warama ama Yahuudda ka warama bariga hore afka way ka dhihi jireen cadowga carbeed ee Yahuudda way dhihi jireen waa markii sheekada la isu qarin jiray oo shucuubta laga cabsan jiray oo dhihi jiray madaxda meesha aad u tahay hadii aad tirada Yahuuddan hadda taageersanaay kursigaaga ba khalad galaayo khatar baad ku jirtaa marka adoo Yahuuddan hoosta kala jira oo ayagana og yihiin hoosta kala jirto oo lacagtii siinayso si shucuubta loo hurdisiyo iska sheeg hadaan Yahuud waa cadow Yahuud waa nacab afla marso in talaabo la qaado maadaama ay madax yihiin oo ciidamo ay leeyihiin oo hub leeyihiin haday nacab yihiin soo inay talaabo qaadaan afka ka sheegi jireen afka sheegi naftirkiisi ayaa waxa la yiri waxba afka xataa lama sheegi karo cadowgina waa Iran Yahuud ma aha istiraatiijiyada Yahuud inay cadow idin tahay ahayd ha laga saaro haya Mareykanka iyo Iran markii si loo fiiriyo kor way iska sheegayaan inay iska soo horjeedaan laakiin waxa loo tashaday ayaga la baabi'inayo dhinac walba ogaada waa muslimiinta sunniyiinta ah Sacuudi markii dhibaato haysata waxay tahay sunniyiinta ayuu inuu zaciim u ahaado ay ahayd meesha uu degan yahay يعني دولة يعني وزن كله أو سنيين تا إنه أوروريسو إلا الشيعة ويجوا الشيعة لكن حكبنا السنيين تا وحلا لينا أنا الله تشهدنا والسنيين تي دولة دي هو ينادي الربيع حرمين كي يكون يعلن إن السنة أوروريسو الربيعنا يهودي أمريكان كياقات علماء دي شيء هذا أردت وساس ما هذا هينا وحلا حراء يواحد تورشون وحكومة يواحد على kuwa soo doon sar wax soo wadeen waxa laga dhaadhicay inta telefishanka keenay kaalayo waxa tiraahdaa wixii aan soo wadnay 30 sano ee soo dhaafay waxba kama jiraan ay ahayd been ay ahayd dhaha markaas inta soo fariisay waxa ay saas dheh markaas dadkii ay hadda koob loo sheegi jiray kitaabadii la qoray iyo cajaladii la sheegay arrimihii la sheegay oo Sacuudi kalama caalam islaamina la way gaarsiiyay ya sheekh kitaabada qoray wuxuu leeyahay wixii aan qoray iyo wixii aan sheegay waan ka cudur daaranayaa oo maxaad rabtaa waxaan rabaa oo ilaa ani hadda la igu og yahay oo ka shaqeynaya islaamka markaas waxa islaamku uu badan yahay waa islaamkee islaamka aad rabto inaad ka shaqeyso waa kee wuxuu yiri waa islaamka uu wado Maxamed bin Salman islaamkaas aan wada anu
محمد بن سلمان إسلام كيسون ونوعه شاغ هيدك شخص أصلا هيدك شاوري مرك أنا شاغ ويهودنا هلا شيء فلسطينيين تاس مساكين تين هو بيسنين أرجع حسها على قد يقو إسلام كي يقاني مرك القرآن كي أنا قاني أنا آخرين إنه يلا ينصع دقي ساس ميا كتالا ساس كم تالا القرآن كي وحاكو تالا ضدك مسلمين تاع هذا ضدك لو كأود بدن أي قبصدان وأيدين سوق إلى الراميان وحال أيدين كربا إن ذو جرجرتان ولا يحور وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر هذا الشيخ مقصود إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق تلو يهودي مريكا ما جسوا جلايان أنا إلى ما يجسوا جلايان محايا لي يهود يا مريكا كم مالك على الوشاة يعني عدو أيهين يسد أيهين يبقى أي وضان كل شيء إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق هاي تايم ضد مسلمين أو ير شنقف لحقف توانقف وحقا مسلمين مستضعفين يا وحيكون سنوليهين وطن كلا أو أي قالوا هايستان شنتي قف أما توانكي قف هذا يدين سو قيلنا أو يسوع درجارة أيضا دهان قالنا أي رجوعنا هذا الشيء إذا كان حياه إن هذا سنبت جلسان نبت دوليات كلتيين سيدي كلا الدبلوماسية هذا حقوق من كرتان وحقوق من كرتان لكن إذا ما صعد قاجسان هذان شنت قف الدولة دينا كتر سن أيان يسوع درجارنا تاسيبك كيمانا يدفت أسوق كينيسان أياك الود تاسوا متكلم لكن مسجد الأقصى أو احتلال كجرة الله قبصني مسلمين تموقف كلا جرب محوية هنا كقاتان جهادك وفرض عين قف كسال جربا وحكوسي باللامن أي مركا ضدك حدود الله ماشي الجوجا أيال ربعين فرض عين كأيوه باللامن مركا باللامن ومدة كلام مسلم كانوا حال جربا هديك عويان أو لقى أول بتو أو تبرتو أساس نقطه ومدة كلام إلى يقول ما تو إلا أي كعيان عيوه باشايست أنا سويدنا مركا فلسطين يهود يا هيسته يهود كلنا ما هيسته ماشي يهود وحكوها يا مريكان كحكوها هبكوا الدجيا لعقتوا سيا عربتوا وقصوا قاضا وتابع مقيس العقد ملايين تايد ويالي دبدا دين وحلا سينا ليهودا ويهود محل دين الله سينا دين تي أو مسلمين يهود محل الله سينا هبك عسى سعودية قف كي مركي هذا إسلام كنوع عسى يهودا قرب سنة هيا مسلم كان أرجع حسوا ويقانا إسلام كوا وضعيا إسلام كيجيه كاس إسلام كان معه إسلام كان محوية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير والله كلا بحسومة جديد مركينا نرى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة شيخ أحمد ياسين الله نحرسه الشهيد كي حماس شيخ هذي يا السودان نقول ما نسياشن يسديدي مروا محاضر الوجه دي وحنا أنا عالم الإسلام وحن كربنا أنا وحن لمنا ورن كعارض دي سهرة ما دام يهود أي مسلمين تكلم وحن كربنا ضاب كينا ينون نقدان صحوه في عنها ورن كأننا جاء يعني كمسلمين تكلم وحن كربنا ضاب إن ينون نقطان هذا محل ولا ضاب كي أنت لقى سيبه ورن كي ليراه ورن كوا أرجع حس محو درا يهود ورن كلي حتى ضاب ما جانت يكون قبضان شوك وحيا لا يكون دران كنا محو صوتورا جنت لواوين الديار ملف بي سي مركا الله سبحانه marka saas ka dhacdo ciidamada Israa'iil oo ka jawaabay duqeyn uga timid Gaza halkaas oo ay ku beegsanayeen koox mintideeda oo falaaga ah waa shacabna oo muslimiin oo la baabiinay ana hadii lay weydiin la saan u dhigi lahaa dagaal saas u dhacay halkaas maanta waxa ka dhacay ciidamada yahuuda ee arxan laawayaasha oo gantaalada adduunka aan laga ogolayn rayidka in lagu rido oo isticmaalay marinka Gaza iyo Falastiiniyiinta oo waxay isaga difaacaan intay waayeen waxay gacanta yar ku sameysteen dhagax oo kale u dhigma ay ku yara tuureen lacalba inuu wax ka yara joojiyo taas xalabadaas marka wariyo waliba wuxuu warrama aqeedadiisa wakaas wariyo walba wuxuu warrama warka wuxuu dhigaa moogtahay dagaalka waa lagu wada jiraa
qof walba marka qofkiisu uu yaqaanaa marka waxa la ina rabaa inagu waxaan ka hadlayno waxay tahay inagu xoraana ilaahay bas ana doomowna cid kale oo ka cabsanayn ma jirto kuwa waxa ku dhawaad lagu dilayaa oo marka calooshooda aan ku jiray markii la qorayo yaa qoray waqtiga lagu dhimanayo maraykan hadduu qoray hadda ay dilaani qof qortay ma jirto ilaahay bas aa qoray alladhi khalaqa al-mawta wal hayata ilaahay baa waxna nooleeya waxna dila marka lagu dila xagga laga keenay waa been wax ka jira maraykan markuu Soomaaliya iimaanay waxayna dhigi jireen maraykanka adduunka asaa ugu xoog weyn lama taaban karo lama dagaali karo maxaa jira qalab wuxuu haystaa asoon ku soo dhaweyn qoriga aa ka haysatid meel asaga uu haysto loo taabana amaanku ka xiraa qoriga ma dhacaayb amaanka dhaq maraykanka ka xiray markii dambe maxaa dhacay dhulka lagu jiijiiday adduunkii waxay fahmeen marka in maraykan la dili karo Soomaaliya marka ogaada canshuur aan dhiibayna canshuurta aan dhiibayna waxay tahay adduunku noo waabsanaaye maxaa noo tusteen maraykantaas uu haystaa ana 94 Suudaan markaan tay jaamacadda waxaan tay Suudaan oo farxa ka muuqda iyo Soomaaliya si u jecel yihiin laana maraykanka cunaqabateen tuu saaray ay dhibeen oo adduunko dhan oo soo saaray nidaam caalami jadiid waxa la yiraahdo adduunko dhan saf uu geliyay oo ruuxii safkaasi ka leexda uu bixiyay adduun maariqa dawladaha ka baxay safka ama dawladaha liiska madow lagu qoro oo liiska madow Suudaan iyo lagu qoraayo oo leeyahay wax ka bixi kara dadka dhan kuyuu la geliyay bay Soomaali intay imaadeen war waxaan waa la iska celin karaa markaas dhulka inta ku jijiday adduunka dhan waxa la arkay Allah war wadankii aan lahayn gaaja ka dilaacday oo saas oo kala maraykan soo galay waasi waxa ku dhacday marka doofaarka waxa la bariga hore ilkiis way weyn moogtay waa laga cabsan jiray waraaba wuxuu riniyo aadna hay qaniinin laakiin si tartiib ah ii qaniin ana maran ku qaniina ana mar qaniin laakiin ciyaar waaya ma ah yaani run ma ah wala isku bilaabay marka waayu dhaay marka adigu bilowday doofar hadaatay bal arka qaniinada say tahay ilaa faantan dhaadheer isma soo gaartaba wuxuu maleynay waraabo faantan si laastigu kan inay isku laabmayso oo tuna xaq intuu kaga keeno tuna xaq uu kaga keeno oo isku dhuujinaayo oo kala goynaayo doofaarkii saambu dhaha faantin xaq bay martaa faantin xaq hatta kuma sari karo uu fiiri markaas maama wuxuu soo saaray waxa ilka doofaar sahansan ayaa li markii waxa la ogaad hadda wixii ka dambeeya doofaar inuu waxba qaniini karin doofaar hadda waraabaha duu arko suu orday webi haduu ka hormaanta isku tuura maraykanka waxa ku dhacday marka adduunka uu waabsan baa Soomaali 93dii baa balaayo ka raacday dhulka lagu jiijiday waa la rafaadiyay adduunka dhan waxay dhahan ilka doofaar sahansan waraykan waan iska celin karaa maalinkii suu jabay ilaa hadda wala isku maqayaa innagana maalin kasto xaqeena waas marka wuxuu go'aan ku gaaray asagoo cadaan ciidankiisa marna inuu keenayo laakiin lacagtu bixinaa kuwa kale inoo keenaa wuxuu halka kaga hayay idinka kuwa hadda kor raadi intuu soo gatay waxa raadiyay ayaa moogtay sida loo damiimuuna aqoon asagoo shidan uu soo gatay idaacaduna markii xilli gaarto way ka baxdaa moogtahay wala soo gabagabeeyay barnaamijkeena inoo soo taxnaa waxaan ku soo aayadaha quraankan ku soo xiray intii uu dhageystay uu dhameeyay aayadaha lagu soo xiray hawada waxaan isku macsalaameynaa inta aan markale hawada ku kulmi doono macsalaamaa leeyahay soo in la damiimo raadi meel laga damiimo qaan maxaa ku xigay marka hadii hawada ka baxday idaacada shay soo ma dhayso intuu ka maray intuu ninkii ma hadlaayo warbahalka maxaa ku dhacay kookali maxaa ku dhacaysan wuxuu adeer dhageyso lambar fiishka u daawiri hadda inaga waxay noo taagantay Soomaaliya lambar fiishka u daa dawladna yana noqonin dawlad la'aan yana noqonin wax magaca ha lahaadeen magacaas dib looga noqon maayo horay loogu socon maayo wax la noqon maayo jigay jig askarta waxa la yiraahdaa markii la gaardisiinayo inay horay u socdaan ay gaardiyaan waa la gartay waxoogaa haday socdaan dib u jeeso intii la wala soo celiyaa meesha ay ka bilaabeen ayaa hadana lagu keenaa markii lagu keeno hadana in la celiyo hadaan rabin oo ay waqtigeena waxa leeyahay meesha ay taageen meesha aad taagantiin darandoori markii macnaheedu ma tahay lagu moogtay isla fahmay meel ay gaari lahayn darandooridu macnaheedu waxay tahay meesha aad taagan tahay la isku celcelin maanta dhamba qajaf marka Soomaalida waxaan ugu dhacay darandoori la ku jirnaa maxaan ku darandoorinaa meeshina taagnaada way inna waxa la yiraahdaa intaan fikirnaano war darandoori meel qasana ku jira darandoori aan dhaqaaqno aan hore u socono oo aynu isfahamno inna walaalaanahay Soomaaliya isku nahay qof walba meeshu ku dhibaataysan yahay gobol janno ku dhacay ma jiro bal soo sheeg gobol Soomaaliyeed oo maanta leer ay marayso mid kasta waa la isla dhaamo way dhici kartaa laakiin dawladnimo in la noqdo iyo sharaftii la yeelan lahaa
قف كل هذا على مجرته خلاف مالك السجوكتا كل بقى الله يسلينايو مالك وهكذا خير الله ينسيه من سومالي وحلاقي شيء وحول عنيقة من حد عن سوق جاري واللي يحوقي كرا عنيقة لكن لا يمسر كرو برو واللي سير جري مقطع هذول اللي لقينا وحلاقي دي جري دم تعلن كشقينا يا هذا وحنا بقينا نفهمه ماشي واللي سلقينا يسمع مركا سرتي بنت عيرتنا نفهمه هدي لي نحوقه اللي هذا ما يا وحي هربنا يا هاين حوق عندكم هاي سنة دولة من نقونيسين مهشينيسين وأنا ذن كلا هينينا وأنا ذن كوس كدرينا وأنا سيك كلا درينا تاسوت الغدي ما يمسويس لكن هذا لسان الحال لسانك وحي جرا مركز أيها وحكا قال سيها أفكي اللي يرادو مركز تاريخ مركز إنه في الصومال دينو ناي هراي اللي نومو وذا إنه هراي نسودنا وحنا هراي سوودي كرنا سرت قال أنت فاهمين دانو دحذنا وحنا جالس إسكام مكان مجرته عدي أي وحكم مقنتها عدي وحكم مقنتها الصومال أنت نقول هذا إنه وركي وحقيس أي جيرانه ولا كوحيس وسوعلي كي وحكم مقينه أما ولا ككرر سو حتى لو حس أياك مقن أما يسقعفي أما هذا إنه عفرين هذا كسوق هذا كرت كسوق هذا هذي لكن لا نسك قارن كريم ليسنا عفرين ليسنا دينين وإحنا لا نقولين هل كاجت تاجر هذا نقطة إنكم بينك قعنتها مركب ما دققناه نقول ما يسقيناه وحمق بسناه ومدة إنما يصب هذه جوبنا أو ما يسور هذينا مسه أنت أصلا سالم بارها هنا أنت ما كلا دورنا هنا مركب تانك الله إنه ومدة برنامج واساسه إننا نسعفينه أو ولا لونه إسلام كقرآن كان كنا قلنا قف كستوى مسلم أو ولا الكيس هعفيه